السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابنا شرفت لكم سوداء رجال الجنة وحان إذن وذاك سير oday waayeelah ayaa wiilkiisa siiyay saacad qadiimi ah wuxuuna ku yiri saacadan waxa lahaa awowgaagii saddexaad waxaana la sameeyay muddo haatan laga joogo 200 oo sano ee bal marka hore qiimaheeda soo ogow wiilkii saacadii ayuu qaaday wuxuuna tagay dukaan lagu iibiyo saacadaha waxayna ku qiimeeyeen in saacadan qiimaheedu yahay $5 maadaama ay tahay saacad duugowday wiilkii markuu aabihii u sheegay qiimaha saacada ayuu ku yiri saacadan qiimahaas ma joogtay ee dukaan kale oo weyn geey wiilkii hadana dukaan kale ayuu tagay waxayna ku qiimeeyeen $5,000 hadana odaygii ayaa ku yiri wiilkiisii saacadan qiimahaas ma joogtay waxaad geysaa madxafka meelaha alaabta la dhigo ee qadiimiga ah wiilkii wuxuu tagay madxafkii markuu u bandhigay saacada way baareen kadibna waxay ogaadeen in saacadan ay tahay mid taariikhi ah oo qarniyo hore la adeegsan jiray waxayna ku qiimeeyeen $100,000 dulucda sheekadan ayaa ah in dadka qaar qiimahaaga dhabta ay gartaan kuwa kalena qiimahaaga ay garanaynin haddaba mar walba ku dadaal inaad la noolaato oo soo dhawaysato kuwa qiimahaaga garan kara ogow qof qiimahaaga garanaynin kuma qadarin kara guud ahaan waayiga intaa sheekadii fadlan subscribe saar channelka Rijaalul Janna si uu ku soo gaaro muuqaalada aan soo geliyo gambaleelkana taawo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya daawada mahadsanidin